السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelkeena Bari Tube waaniga Xamse Baariye maanta iyo muuqaal cusub waa maanta iyo barnaamijkeena waa kuma maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qabiilame haddii aad TikTok isticmaashid mar uu ka soo horbaxay qabiilame taba aanu guda galno taariikh nololeedkiisa oo kooban qabiilame wuxuu dhashay 9 Maarso 2000 wuxuuna ku dhashay wadanka Senegal oo u dhashay wuxuuna ku nool yahay Italy waana TikToker kaasi oo sameeya muuqaalo aamusnaan ah wuxuuna haystaa in ka badan 136 milyan oo followers wuxuuna ku jiraa kaalinta labaad dadka ugu followerska badan TikTok taasi oo ka horeyso kaliya gabadha yiraahdo Charlie wuxuuna postigii ee uu soo dhigo TikTok ka sameeyaa lacag 18540 dollar ilaa inta u dhaxaysa 135,900 mar laga yaabo sida followerska u kordhayaan ayaa taageerayaasha Charlie ay weerar ku soo qaadeen qabiilame oo ay hashtagyo cancel qabiilame ah ku weerareen iyagoo ku eedeynaya in muuqaalada dadka walwalan soo qaato kuwaas oo ay TikTok ka diiday eedeynta ay eedeeyeen wuxuuna TikTok ku soo biiray waqtigii COVID-19 bilaamay markaas oo ay shirkad uu ka shaqeynaya laga eriyay ayuu bilaabay bartan TikTok ee uu hadda caanka ku yahay wuxuuna ku caanbaxay ka falcelinta muuqaal isagoon hadlayn laakiin su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay qabiilame aamusnaantu ma waxay ka tahay jiliin mise waxay ka tahay curyaanimo okay qabiilame aamusnaantu waxay ka tahay jiliin oo uu talagalay in uu muuqaalada saa ku sameeyo laakiin uu hadlaa wuxuuna ku hadlaa laba luqadood kuwaas oo kala Ingiriis iyo Italian quindi dici non devi investirlo perché molto probabilmente la vinci la tua. Esatto. Quindi si sta ribaltando la situazione. Ma hanno rubato il monopattino, cioè, ma scherziamo? Quei sporchi bianchi, andiamo! Andiamo a far fuori qualche bianco oggi. Sì, faccio fuori tutto oggi. Bro, vieni. Ferro Franco. Franco al ferro. Devo entrare nel mood vostro. Sì, vediamo come te la cavi. muuqaalkiisii ugu horeeyay ee uu soo post gareeyo wuxuu ahaa kan qabiilame ayaa la isleeyahay wuxuu noqon doonaa qofka koowaad ee ugu followerska badan bilahan soo socota taas oo ay gabadha ka horeysa ku hogaaminayso 2 milyan oo kaliya waayo isagu wuxuu ku socdaa xawaare ka badan tan ay Charlie ku socoto followerska okay adigu ma isleedahay bilahan soo socda wuxuu noqon doonaa qofka ugu followerska badan TikTok fikradaada waxaad nagula wadaagtaa qaybta commentiga okay waxaan inta inagu soo dhamaaday barnaamijkeennii waa kuma oo maanta ku soo qaadanayna qabiilame intaan barnaamijka qurux badan ku kulmi doona waa walaalkiin Xamse Baariye sidaas iyo fi amaanillah.